بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همبليو سنة قولة سنة لحدناد إكسو وريكتي مالنتي أين حرية قادني لحيلا تنكي تشون كن يسيال بغوية لحدنكي تذكر رئيس مالا وحيار ير أوفر أيا كنول تذكي قرنا أيا maalintaas u soo joogay iyo taariikhdii ka horreysay halgankii loo soo galay isticmaarkii dhibtiisa iyagoo dalkeena siduu u qaybiyey iyo xumaanihii dalka ka taagnaa saddexdii xisbi ee halganka soo galay ahaa NUF SNL iyo USB taariikhdooda wax yar baa la sugay cid xusuusan oo garanaysaa ma jirto iska daa hoggaamintii iyo siyaasiyiintii badankoodu iminka godgalay inaan la xusin taana waxaa keentay qoraalo inaanay jirin dhaqankii qoraalkeenu wuxuu isu bedelay qof la xayeysiinayo wax qadiyada oo wanu wax ka qoraa waxaan jirin xataa qadiyadii SNM halganida ay soo martay battlefieldskii meelahii wixii dhacay waxay doonaysay waxaasoo dhan wax maaragtay qaladaadkii jiray xilligii SNMta iyo xilligii xorriyadoonka wixii oo dhan baa inaga maqan markaasoo khayaal fara badan la sameeyaa oo dacayado badan la sameeyaa oo ay keentay inay dadkii maadaama dhibtan dambe la xusuusanayo in dad badaniba ku faanaan isticmaalkii oo isticmaalkii ka dhigaan inuu isticmaalku inoo fiicnaa isticmaalkuna ninka halkaa ina dhigay dhaqankan xun inoo yeelay qabyaaladda isagaa inagu abuuray maxaan kale ku idhaahdaa dhulkii uu bixiyey iyo dhibteedii waynu ognahay dhulkii daaqsinka inoo ahaa inuu si hawlir u bixiyey waxaasoo dhan oo jira ayaanu haddana aynu ilowsanahay oo dad badan oo dhalinyara marka la sheekaysato aad moodaysay in xilligii isticmaalka jano lagu jiray dhibtayna haysto maanta waa dhib uun ka dhalatay raadkii xumaaya isticmaalkii ingiriiska ayay ka dhalatay calaa kulli xaal waynu xorownay 65 sanaynu jiray 65kaa sano maxaa inaga qaldan maxaa diiday dadkeenu inay naaqishaan oo qadiyadda qaranka ay ka sheekeeyaan intay ka sheekeynayaan reer hebel iyo reer hebel maxaa loo magacaabay iyo reer hebel xilkuu hayaa iyo hebel wasiir daba cararaya wasiir dhan oo qaran loo dhiibay shaqo qaran ayaa reerkooda marna shirinaya marna reerkooda u mahadnaqayaan xoolo reerkoodu looyina kama talinayo wuxuu ka talinayaa waa xoolo qaranku leeyahay wax la wada leeyahay intay reertaasi jirto horumarna gaadhi mayno waxna qabsan mayno dadka bini aadanka dal maanta aan waxbarashada caruurtiisa ku filayn elementary intermediate iyo secondary inta loo yaqaano primary educationka waa wada bilaash dunida dal aan xamadba haynin inuu waxbarashadu oon iskuula dhisaynin oon fasala samaynaynin oon caafimaadka wax ka qabanaynin oo ma jirto labada xil ee waxyaabaha ugu waaweyn ee qaranka maaragtay ummadda bulshada lagu hogaamiya markay ka timaado difaaca qarannimada caafimaadka waxbarashada iyo kor u qaadida dee nolosha dadka in kor loo qaado shaqo abuur jiro halkii waxa aynu ka doodi lahayn waxaynu ka doodnaa reer hebel maxaa la siiyey reer hebel marka wax la siiyo haddaanu qofka wax la siiyey waxa keliya uu reerka u qaban kara waa 10 qof uu sida sharci darraa u shaqaalaysiiyo iyo 10 kaloo afmeeshaar waxoogaa baroolka ugu shubo baabuurta reerka intiisii ballaadhnayd waxa u dana inay caruurtooda waxbarasho hesho inay caruurtooda ehelkooda dadku caafimaad helaan inay dariiqyo fiican helaan in ubadka waxbartay shaqo loo raadiyo taasaa u dana taana lagu gaari maayo wasiiro ku yimi hab qabiil lagu gaari maayo intay dadkii ay wax weydiisan lahaayeen odhan lahaa war ubadka wax noo bara oo dhalinyarada shaqo la-aanta noo shaqaaleeya oo maxaan ku idhaahdaa caafimaadna siiya oo waxbarashana siiya oo ammaanna siiya oo cadaaladna siiya ay leeyihiin hal qof noo magacaaba idinku gaari mayso
waxay u baahan tahay arrintan in hoggaanku wax ka qabto. cabdiraxmaan waxa weeye kolley marka hore ee qofku madaxweyne noqdo arrin yaroo shokaa jirto markaaba isbeddelku ma yimaado, laakiin waxaan ku boorinayaa inuu isbeddel dhaqankaa deg ugu soo afjaro. waa kula berber taaganahay ilaa imaka wax badan baad fursay oo nin wax dhegaysanaya oo wax maqlaaya ayaa tahay. waxa weeye wax badan baa lagaa sugayaa. waa ku berber taagannahay, waxaanu kula berber taagannahay isbeddel dhaqan dowladnimo oo la bedelo. dhaqankan damaashaadka iyo xilwareejintan nacnaca iyo shokolaatada iyo falaawirka la isku shubaayo inaad joojiso. dhaqankan reer kaaribadka lagu dhigayo waddankaaga gudihiisa inaad joojiso. waxaasoo dhammi waxa weye waa walcad baa lagu cunayaa. iskumaasaqu wuxuu ka yimaadaa uun activityga dadka marka la farabadiyo, shirarka, xafladaha, waxaas waxa weeye uun lacaguun lagu cunaayo. lacagtaa la cunaya waa tii waxba iskuulada inoo dhisi lahayd, waa tii caafimaadka inoo dhisi lahayd. inagoo 65 sannadood dal xora ahayn, wax ka saafu ina soo maro qaladaadka waqtigii gelitaliska waxaa o dhan laga saari maayo taariikhda inaga gacanta ku haysane. 65 baynu jirray. 65 aynu jirray inaynu dib u socono maayo, waynu hore u socono. hore waxaa lagu socon karaa dhaqankaa xun qof reer maxaanku idhahda madax looga dhigayo in laga baxo. si hawl yar waxaad uga baxaysaa waxa weeye kolley yani tixgelintu way jirtaa, gobol baa loo tixgeliyaa dadka. maxay kala leeyihiin dadka maxaanku idhaha celaf weyn degan waddada yare hormarto ah, maxay dowladda ka doonayaan? ma danbay kala leeyihiin gooniya? ma kala laha. hargeysa isku dan weeye, gabiila isku dan weeye, boorame isku dan weeye, maxaanku idhaahdaa burco isku dan weeye, berbera isku dan weeye. dadka deegaan ahaan waa in loola hadlo oon kala shirin, oon qolqolo loo kala saarin. waa inana dowlad wanaagga laga hadlaa oo doodaheenu noqdaan iyo shirarkeenu qadyado, inaynu ka hadino wax qadyad la yidhaahdo, oo aynu dhaafno shirarka reeraha ah iyo tixgelinta reeraha. waa nin walba qoyskaaga wixii adigu gaar u leedahay sida doonto ugu tariifo, laakiin wixii qaranku kuu dhiibay reer kuuma dhiibin. qarankaa leh, ummaddaada leh, ummadda masaakiinta cashuurtii laga soo ururiyey daraf ilaa daraf. qof aan cashuur bixiye ahayni ma jiro. dadkaasi dhammaantood waa cashuur bixiye. badeecadda ay iibsanayaan waa badeecad cashuuran, lacag bay bixiyeen. ilaa imankan cuntadii baa taw lagu soo wargay bashaahii, ilaa imanka xawaaladihii baa lagu soo lacagtii dadka xawaalinayay. yani waxa weeye waxaasi dadka masaakiinta baa cashuurta bixiya. qof aan cashuur bixini oo somaliland joogaa ma jiro. waa xoolahoodii in laga dhaadhiciyo in waxan aanu koox bacamisan lahayn, reerna lahayn, ay tahay lacagtii ummadda laga soo ururiyey daraf ilaa daraf inay cashuur bixiyaa dadku yihiin. cashuurta ay bixiyeen wax lagu qabto. madaxweyne cabdiraxmaan albaabkan ad furtay ee negotiationka ah ee soo jeedanaya dowladaha dibaddana waa kuugu berber taaganahay. insha allah dhaqso inuu heli doonaa ictiraaf, laakiin ictiraafka waxa aniga igala weyn inaynu gudaheena wax saxno. gudaheena inaynu waxsano wax badan baynu qabsan karaa, dhaqaalahaynu hagaajsan karaa, horumar baynu gaari karaa, dadkayga iyo hunta iyo wanaagga iyo midnimadaynu xoojin karaa. 26 juun waa maalin qiimo badan, waa maalin wanaagsan, waa maalin ta dhashay iyadaa dhashay maxaanku idhaha 18 May. waayo markii 26 wixii naga qalocsanay soo celinteedii waxaynu ku soo celinay magaca intaynay 26 Juun wada lahayd. midnimada ha la ilaaliyo, ha la saxo wax, hana la qoro, ha lagu dhiirado in la qoro wixii inaga qaldamay. markaynu qoro ayaynu wax horumar gaari karaan oo saxi karaa. haddaynu wanaagun ka sheekayno dee wanaag waad haysataaba wanaagii, laakiin waxa kaa qaldan baa ku tusa inaad wanaagana haysto, wanaag kasii wanaagsan aad gaari karto. ha lagu dhiirado in qaladaadka la qoro, oo qoraaladan qofkuun ammaanaya waxala wax macnoo horumar oo bulshada u keenayaan waa yar tahay. bulshadu waxay u baahan tahay qadyadda ay wadaagto siday ku gaadhayso.
iyo dhaliilaha oo qoraalo si tafatiran loo sameeyo. maxaan ku idhaha dhaliisha iyo cayduna waa laba shay oo aad u kala duwan. dhaliishu waxa weeye qalad ad samaysay oo laguu sheegayo iyo wax ka wanaagsan ood samayn karto lagu tilmaamayo. cayduna waxa weeye waxaan jirin oo lagugu sheegayo oo dacaayad jamana. marka dhaliisha dowladduna ha ogolaato, caydina maxaad garanaysaa dulqaadkeeda ha yeelato. wax alla wax macno oo ay samaynaysaa ma jiro. qof kastoo ku caayayna in la ciqaabo iska ciqaaban yahayba qofkaasi marka u jawaabi weydo. laakiin waxaynu u baahanahay in dhaliisha loo ogolaado, in la isdhegaysto. madaxweyne cabdiraxmaan waxa weye nin dulqaad badan. waxaan u qabaa inuu yahay nin dadka dhegaysta. ilaa berigii ugu horreysay ee uu soo baxay markuu ra'iisul baarlamaanka ahaa magaaladan Cardiff 2005 buu nagu yimi oo xafladdii u weyneed ee baarlamaanka Wales lagu furayey. kaar rasmi oo boqoradu casumadeedii ayuu ku yimi, isaga iyo gudoomiye ku-xigeenka markaas socday oo Soomaali ahaa. ilaa maanta waa isnaqaan. nin wax dhegaysto oo wax maqlo oo degan weeye. waa la shaqaynaynaa, laakiin waxaan kula shaqaynaynaana waxa weeye in isbeddel uu dhaliyo. isbeddel maaha hebel ku bedel. isbeddel waa dhaqanka dowladnimo oo la bedelo, oo qabiilka laga guuro, oo laga guuro xafladaha iyo sawirada iyagu arkayda iyo reer kaarbadka iyo lacagta faraha badan ee xafladaha ku baxayso oo laga baxo. waa inta ugu yar. intaasaa ugu yar isbeddel. marka dhaqanka wixii isbeddel wuxuu keenayaa la xisaabtan buu keenaya. ayuu dhalinaya marka dhaqankaa ka guurto. wuxuu keenayaa qarannimo oo qabiilkii laga guuro. wuxuu keenayaa lacagtii lagu bixinayo waxaase oo ummadda wax loogu qabto. horta bal intaa halkaa ka bilow. ilaahay guulaha ku siiyo. guushaadu waa guushii qaranka. madaxweyneyaasha waa loo duceeyaa, lama habaaro. waayo waxa weeye ducadu markaad u ducayso raad bay leedahay. waa ninkii taladiisu keligii ma taabanaysa, wayna wada taabanaysaa. go-aanadu qaadanaya. marka ilaahay tubta wanaagsan ha tuso, wanaagga ha tuso, waxqabadka ha tuso, cadaaladda ha tuso, dhaartii uu dhaartay ilaahay ha tuso, ha xusuusiyo xilli walba. guul baa inoo rajaynaya. 16 Juun ha noolaato. hambalyo Somaliland. guul, wadajir, issaamax, isdhegaysi, isqadarin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.